Ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dowladda Soomaaliya isla markaana ka howlgala gobolka Shabeellada Dhexe iyo ciidamada deegaanka ee is abaabulaya ayaa howlgallo ay sameeyeen waxay kula wareegeen deegaanada kale ah Tawfiiq, Qaylo, Burdere, Bacadley, Baqdaad, Xanuule oo dhammaantoodba hoos yimaada magaalada Jowhar. Ciidamadan ayaa halkaasi waxa ay ka saareen kooxda khawaariijta ee Al-Shabaab ee sanadihii ayna soo dhaafnay halkaasi bulshada ku nool gobolkan Shabeellada Dhexe dhibaatooyin u geysan jiray. Maxamed Cali Kalay iyo Jeylaani Faroole oo labadooda hogaaminayay ciidamadan goobahaasi la wareegay ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah kooxda khawaariijta Al-Shabaab. dowladda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsaynaa inuu garab istaag weyn noo sameeyo hadduu Ilaahay yiraahdo oo alla ay badidmo oo garabka macnaha naga soo joogsado oo macnaha na taakuleeyo balcad iyo joor inta ka dhaxla ah. hadda waxaan ku suganahay tuulada Bacadley oo shalay muddo 8 saac soo galay oo xalay ku bariyay oo haddana joogo biriga oo khamiista ay tahay oo cabada jimcada ay soo galayso biyahaasna inaan umada ka shiro oo ka xiro oo u joogo. waxaan ka codsaynaa madaxweynaha iyo madaxweynaha Hirshabeelle waxaan ka codsaynaa inay na garab joogsadaan oo ummadan u soo gargaaraan oo ummadan macnaha waa baabaaday wax u yaal male beerahoodii uu ku dayaaya biyo loogu deeyay si qasab ah oo macnaha beerahoodii waxay ku cunaan ama waxay waxeystaan male. anagana hadii Ilaahay raado waxaan diyaar u nahay inaan difaacno nin alaala ninkii ummadda dhibaayo oo ummadda Soomaaliyeed ka soo horjeedo inaan dhiigaan u bixino oo dhiigaan unka hadii Ilaahay raado oo ku baxo oo ku dhimano anaga diyaar u ah. waxaan codsaynaa dawladda Soomaaliya inta joogto inaan macnaha garab istaag weyn oo inoo sameeyaan. waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa kooxihii nabadiidka ee ummadda Soomaaliyeed qaribay ee dad iyo duunyaba wax amala aysan u lahayn rabaan in ayaga kaliya noolaadaan. waxaan maanta taaganahay tuulada Bacadley ay biyo ka daayeen ummadda Soomaaliyeedna ay ka jareen dhirtii ay lahaayeen ay raashin ka dhiga lahaayeen noloshii dhan way u diideen. waxaan ka soo dhaqaajinay Bacadley kadib markaan dhibku adkaysan weynay waxaan hadda taaganahay tuulada Bacadley intaasoo tuulaan soo dhaafnay oo Raqaylow, Xanuule, Tawfiiq, meesha la yiraahdo Baqdaad, Boodale, Jilaale, haddana waxaan ku sugannahay Bacadley. intaasoo dhan kooxihii nabadiidku ay ku sugnaayeen markay ay arkeen inaysan hor istaagi karin waxay ka tilaabeen webiga barigiisa u gudbeen. alxamdulillaah ilaahay wuu nagu guuleeyay boqdii ay daayeen aan kor taagannahay. waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inaan xirno hadduu alla idmo. dawladdan waxaan ka rajaynaynaa inay garab weyn nagu siiso nagu taakulayso. dadka deegaanka wax ay haystaan lama arko wax la cuno iyo wax la cabo intaba male biyihii waa ka saasay dhiiqo u yihiin. toddobaadadii ayna soo dhaafnay deegaano badan oo ka tirsan gobolkan Shabeellada Dhexe ayaa laga saaray kooxda khawaariijta Al-Shabaab iyadoona weli howlgallada ay ka socdaan degmooyin kale oo ka tirsan gobolkan Shabeellada Dhexe.